بسم الله الرحمن الرحيم ما توحنا جوجنا مناسبة الدافوركا MCH كحنبة ويني MCH كنا هرلو نجح دقي حرقنا لوجا شري أيام ما توحنا جوجنا solar system كيف لقيه هرجلية وحنا solar system كي هرجلية هبلا قربة شوجا الدقمة الاسكيل كارهان ديجان كانوا حنبة ويني مركا هبلا سوي حسوي شران قربة شوج يقل شوج مركا ما أنت مناسبة داس لكن وذا شوجنا مركا حفلة دبينو كجودة قلت دونا سيدي هان شرتي أيضا قرآن كريم كابين كسودو وين كشيخ عبد الرحمن فليتفضل شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. كحكتا waxaan ka jawaabayaa dhawaaq dheer oo nooga yimi hablaha deegaankan degan Maxamuud Jibriil taasoo ay cadilaayeen solar la'aan meel ay ku mulaan carrahoodii dadkooda ay ku mulaan ay laayeen dhawaaqi markay noo soo gudbiyeen waxaanu gaarsiinay hablihii qurbaha joogay iyo hablihii joogay magaaladaba isla daqiiqadba dhawaaqi way ka soo jawaabeen hablihii waxay ballan qaadeen in dadkoodii wax la qaybsadaan ay solarkii ugu xidhaan MCH xanaanada waa la suurtageliyay maanta daaha laga jaray wataa loo xidhad arkaysaan xafladina maantaanu qabanay iyagana intii ka qayb gashay intii gacan ka geysatay intii af ka geysatay intii saanta soo qaaday halkan isugu wada timi intaba ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka in ilaahay ugu daro halkan waxaan uga mahad celinayaa hablaha noo keenay solarta ee ka tirsan degmada Laasgaal hortayba ay inantu sheegtay iyo uqaasha iyo wadaadada la socday ee Hargeysa ka yimi gudoomiyaha Laasgaal iyo maamulkiisa intaas waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay hablihii noo keenay solarta halkaa maanta ka qabateen weligiinba ka haya idinka waa idin sadaqo fi aakhiraba waa wixii lagu liibaanayay waa nuur ilaahayna waxaan ka baryaa ilaahay nuur idinka dhiga aakhirayn ilaahay nuur idinka dhigo waxaan leeyahay dadka kale ee beesha ka mid ah Laasgaal xumbo weyne iyaguna inay ku daydaan ee qurba joog iyo dhul joogba ah kuwa wadanka jooga iyo kuwa qurba ku maqanba sidaa ka muuqata hablaha gacmahooda gacmahooda jilbay wax ku gooyaan waa wax dhaba waxa adduunku ku horumaray hore loogu socday weey waxaan leeyahay Allah idin buuxiyo allana idin sii kordhiyo maqaalufka iyo tayada iyo waxgaradka intaba Allah idin ku roonaado waxaan marka hore ilaahay baan u mahad celinayaa marka labaadna cidda halkan aynu joogno maxay ahayd caafimaadka xanaanadan aynu joogno oo anu runtii aan oran karaba waa dhakhtar waayo bahalada yaalla sariiraha yaalla dhakhtaradaba ma yaallaan aad iyo aad bay dadkii ka gacan geystay ay u mahadsan yihiin aanan ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahadle iyagana aan ugu mahad celinaynaa maadaama ay gacan ka qaateen khusuusan xafladan aynu joogno maanta hablaha soo agaasimay mashruucan aynu imika furayno oo ah tii solarta oo runtii baahidii uu maxay ahayday uu lahaa xanaanadan ay lahayd dhammaystiray hadday noqoto maxay ahayday tii talaajada iyo laydhahaanba aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa aadna way u mahadsan yihiin taasoo iyagu ay isku xilqaameen khaasna ay u ahaayeen kuwii hore ee la keenay runtii sirro ka mid ahayna ay ka gacan geysteen iyaga aad baynu ugu mahad celinaynaa dadka gacanta ku haya ee halkan ku hayana waxaanu leenahay dee waxa weeyaan xoolaha la keenay sidaad ugu shaqaysaan iyo sidaad qaabkaad u maamushaan unbay kuwa kalena idinku iman doonaan idinkana ilaahay ah idinku astaan leenahay ilaahay baa mahadle halkan maanta isugu keenay xanaanadan deegaanka xumbo weyne oo hoostaga degmada Laasgaal ilaahay isugu keenay baa mahadle halkan maanta waxaanu ka daafuraynaa solarta loo keenay xanaanada xumbo weyne oo ay ku deeqeen hablo qurba joog iyo qulqulba joogba leh
oo deegaankan xunba weyne ka soo jeeda oo isku taxaluujiyey inay degaankoodan iyo dadka jilicsan ee umuraha halkan ay u keenaan inay soolar u xidhaan. halkan waxaa ka jirtay markii aanay soolartan hablo aanay keenin ka hor waxaa ka jira halkan in gabadha umusho ama gabadha ama qofka xanuunsanaya habeenkii toosh loo isticmaali jiray oo waxa weeye dee dhakhtarkaa dhan ay aragtaan intaa leeg ninka doctoorka ah joogaa wuu u isticmaalayey inuu toosh caafimaadkaa kaga shaqeeyo. tooshna waa garanaysaan dee awooddiisa iyo leerkiisa. halkaasay ka timi cabashadu hablo ay ka heleen warka ka heleen iyo qeylada iyo warbixinta. dabeedna waxay isku tacluujiyeen inay degaankooda ku caawiyaan soolartaa oo ay u soo iibiyaan qurbajoog iyo qurbajoogba. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. waxaan leeyahay dadka kale rag iyo dumarbale ama qurqurjoogta ama qurbajoogta ee deegaanka laasgaale ama degaamadani ha kaga daydaan waxqabadkaa muuqda ee maanta ay degaankoodii dadkoodii jilicsanaa ay u qabteen hablahaasi. ha lagaga daydo. waxaa odhan lahaa hawlaha iyo hawlo kale ka waaweynba inay fuliyaan baa habboon. dadka dhulkanu iskaashadaan. waxaa kaloo aan ku boorinayaa degaankani waa degaan ballaadhan degmada laasgaal. waxa weeye ma laha gaarigii ambalaasta dhakhtarkaha ma laha. waa dhowr iyo 10 tuulo. waxa laalo wax qof umulo iyo qof xanuunsan lagu soo qaado male. horta waxaan ka samaadanayaa dhammaan ugu horreysiinayaa hablahan hawsha weyn qabtay ee iskood isku xilqaamay ee degmada waxa weeye gudo iyo dibadba aad baan u salaamayaa. waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala meesha ka soo saarteen waxay wax khayr qaba oo ka wanaagsan idinku bedelo. camalka aad samaysayna inaad kasii labalaabtaan baanu idinka rajaynaynaa. runtii badan baa la hadlay wax badan ku dari maayo. se farriin baan halkan uga darayaa dhammaan mandaqada iyo somalilan oo dhan oon leeyahay markay cid isu timaado mee deegaanka noocan oo kale la isugu yimaado in isku imaatinka iyo dadka isugu yimaada haddii jeer waxaa la siyaasaday cabashooyin iyo waxaa laga sheekeeya waxyaabo kale. laakiin waxqabad noocan oo kale ah oo dadku ay isugu yimaadaan danahooga iyo wixii dan u ah inay isugu yimaadaan inay tusaale ka qaataan oo taasoo kale ay ku dhaqaaqaan baan ku boorinaya insha allahu tacaala. waxaan insha allah ilaahay ka baryayaa inuu inagu anfaco. waxa weeye MCH-kana intaa in ka badanna la soo geliyay insha allah. sadaqaduna waxay noqonaysaa meelahan oo kale waa sadaqada jaariyada ah ee weligeed soconaysa insha allah. intaasaan kusoo gaabinaya. wassalaamu calaykum. maanta waxaa mahadnaq noo ah oo aan u mahadnaqaynaa in laga soo jawaabay codsigii aanu codsannay ee ku saabsanaa in MCH-ka xubweyne loo keeno solar system. in MCH-ka xubweyne loo keeno solar systemkii lagu shaqayn lahaa. taasoo markii hore ay dhacaysay in gabadha umusho ee la keeno MCH-ka mugdi lagaga umulinaya toosh iyo wax aan dhaamin oo saasa. taasina ay sharciyan dee qalad tahay. maanta waxaad aragtaan in solarkii noo wada baxayo oo uu MCH-ka gebigiisa wada caddaan yahay. qayb kasta qaybta deliveryga qaybtii chiefka qaybtii xafiisyadii lagu shaqaynayay wixii oo dhani inay wada ifayaan ay wada shaqaynayaan oo solarka powerkiisu aad ku fiican yahay. beetriyadii aadkaa leh inverterkii leh charge controlkii leh oo kicinaya talaagadii leh oo mara waxadii kicinaya waxa weeye wax ilaahay loogu mahadnaqo oo aan MCH-da kale lahayn. hablihii deegaanka ka soo jeeday alaabta keenana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. hablahan isugu yimiday system solarkan ee iska qacan geystay dhammaantood qurbajoogii qolqoljoogoogu way mahadsan yihiin. waxaan kaloo leeyahay degmadan xunba weyne meeshan inta badan waxaa timaada waa hooyo mashruucan hooyo timaada marka inta badan hooyaa timaada caruur baa timaada inaguna sidaad u ilaashan lahayd balogeed qabsada. MCH-kan haddii degmada laasgaal yar warbixin aan ka siino waliba dadka khusuusan qurbajoogga laasgaal ka soo jeeda degmada laasgaal waxaa ku yaalla 3 MCH ka Dacar Buruq kan iyo ka Darar Weyne. labada way shaqeeyaan laakiin weli sida kanoo kale dadkii qurbajoogga ahaa uma kicin. bardhowito odaymahadii miisaanka xasanaadka ugu daro iyo odayaal kale waxay ka soo shaqeeyeen inay keenaan iyo qolo qurbajoogi sariira iyo qalabayntii ugu horreysay halkan aanu kagala wareegnay. maanta waa maadlabaadkii hablaha magaca beesha maxamuud jibriil ku hadlaya ayaa soo ururiyey markii la arkay in MCH-ku uu baahiyo badan leeyahay oo ay ka mid tahay in solar loo sameeyo. solartaa markii laga codsaday hablahaasi
whatsappkooda qurbajoog iyo qolqoljoogba way ku soo ururiyeen way keeneen deegaanka laasgaal waa deegaan ballaaran ilaa wuxuu ka kooban yahay 20 tuulo 20 tuulo ilaa xeebta 6 degmo ayaanu la xad leenahay 6 degmo waxa ka dhaca shilalka dadka dumarka umulaya oo muraarora dadka qaniinka abeesada oo kale oo ay xeebta ku badan tahay dhibtaas soo dhamin inta qofka soo sideed ilaa Hargeysa la soo cararayso waxba kama taraan laakiin haddii ama MCHyo ama cusbitaal ay degmadu u baahan tahay loo sameeyo mar walba cusbitaalkaana ay degmadu u baahan tahay Salaxleeyo kale waxa uu dhisay urur gaaroodi leeyahay reer Salaxleeyo baa dhisay gacantay ku hayaan dadkaas waa dad community oo isu tagay iyaga wada cusbitaalkaas Salaxleeyo marka dadkan deegaanka waxaan u sheegaynaa qurbajoog iyo qolqoljoogba inay isku tashadaan oo wixii ay qaban karayaan oo sadaqa tijaariya oo soconaysa sadaqadaas waa sadaqadu soconaysa oo sadaqa tijaariya marka waxa leeyahay ku dhiirada marka waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka Ilaahay ugu daro qof walba wax ku soo darsadayba oo jeebadiisa ka soo bixiyaba oo hablahaasina ay ugu horeeyaan